lo ayaa la yidhi lo ay biyihii la waa lo'dii iyo kolkaa raxan u joogtaa jawaabtoo tiri si kastoo biyo loo waayo soo ceelkii tegi mayno. dawacadu halka ay macal idaad uga baratana macluul bay ugu baktidaa. waxaan uga gon leeyahay ninka la yidhaahdaa cabdi ciise cajuun hadduu ooridiisii iyo xaaskiisii tusmo waxa ay mudan tahay garan waayey maxaa daba dhigay iyadoo ay bil cibaado tahay oo uu uga hanjabayaa ciqaab aysan mudnaynna u bidaya ma dareen xumadiisa mise waa ficilka liita iyo soomaaliyo fiirada ka gaabisay. bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. giddi iyo gibilahaan soomaali weyn meel baa dunida ka joogtaan allah weyn waxaanu ka wada rajaynayaa caafimaad iyo cibaado suuban iyo camal khayr mid kasta oo muraad leh oo ina ka mid ah aabaha muraadkiisa inuu mid khayr ka dhigo kuwa xanuunsan caafimaad taama siiyo kuwa geeriyooday jannadii udgooneed hooy uga yeelo kuwa laga geeriyoodana samir iyo iimaan uu ka siiyo kuwa dhal sugaya dhal barakaysan siiyo kuwa dhasha haysana dhasha uu barakay laba horaan dalkeenni iyo nabada iyo dadka Soomaaliyeed oo midaysanna allah weyn waa weydiisanaya. haddaba barnaamijka aan ka hadlayo maanta dareen ahaan waa mid aniga ay damqay qof kastoo damiirlana uu ka damqanayo. waxaan ogsoonay dulmigu inuu yahay wax aad u liita ee bahayna qoomam ku ciqaabay dadka Soomaaliyeed ee damiir kale ee dhiiga Soomaaliyeed leh ee diin islaam ku dhashayna arrinka kanaan maanta ka hadlayo way dhibsanayaan. waa codad iyo camal liita iyo ciqaab weli naftiisu dareynayso cabdi ciise cajuun inuu bido safiyo tusmo. aragtida tan iyo codakan waxa ila wadaagay dad Soomaaliyeed oo ka agdhow isaga ehel iyo qaraabe iyo qoys u xiga yaqaana hase ahaatee damiirkoodu qaadan waaye dulmiga uu ku wado hooyada Soomaaliyeed. haddaba sidaasay tahay dad baa ku lamaano fikirka liita ku taageerayo garab ku siinay. haddaba inta aan barnaamijka guda gelin ama aan faalayn kuwii hore u joogay barakooba oo halkiina ay fadhiyo waxa weeye iga warsuga way noo bilaaban doontaa kuwiina dib nagaga soo biirana samaha iyo saameynta aan bulshada Soomaaliyeed mar walba u tilmaano idinkana inaad nala joogtaan lama horaan iyo dhiirigelin bay noo tahay nagu soo biiro subscribe si dhaha gacmaha idin barakoobay. haddaba barnaamijkeena aan sii guda galnay ka warrama hooyada Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed ee la ciilay ee la ceebeeyay ee carada iyo calawiyowga iyo waxaysan mudnayn la baday ee weli la daba taagan yahay iyadoo ay bil cibaado iyo rabadaan barakadiis tahay. qof kasta oo damiir leh barnaamijka aan maanta idin la wadaagayo ama codka aan idin dhageysiinayo kolka uu dhageysto wuu damqanaya wuu ciishoonaya wuuna caroonaya. waa midoo kii dulmi ku taageerayay waxa uu yahayna shareecan kiraya ama tii sidaa sameynaysa haddii ay damiir leedahay oo allah weyn ay ka cabsanayso wuu toobad keenaya ama way toobad keenaysaa. waa tan kale qof kasta oo gabadha Soomaaliyeed in shalay la dhibay waxaysan mudnayn iyo dulmi la baday wuxuu ogaanayaa xaq inuu ku taagan. haddaba barnaamijkan waxa ila soo wadaagay dad ahla iyo qaraabo iyo qoys u dhow ah ninka kan la yiraahdo cabdi ciise cajuun hase ahaatee damiirkoodu ay qaadan waayeen dulmiga uu sameynayo ficilada liidata iyo gabadha dibindaabyadu ku hayo. dadka Soomaaliyeedna ilaahay ma simin hadduu isagu nin liita yahay beesho soo dhamma liidato. haddii ay jiraan dad dulaysan oo dhawqa xun iyo tilmaamaha xun uu gabadha Soomaaliyeed ku sameeyo ku taageersan dad badan oo ka dheedhiyo ehel iyo qaraabo ugu dhowna way jiraan. haddaba dulmiga iyo tacadiga uu gabadha ninka kan u geysanayo iyo ficilada liidata waxay tahay inuu weli u hanjabayo oo uu caayayo tilmaamayana in uu ciil badayo. cayda iyo ficilada xun uu ku hadlayo qof kasta oo muslim ah dhigiisu qaadan maya. allihii ku abuuray eed male hase ahaatee indhihii ku arkay iyo dhegihii ku maqlaa ayaan daran. waxaan doonayaa inaad dhawaqaa liidata iyo hanjabaada iyo goodida ninka aad ila dhegaysataan. hase ahaatee tasbiixda iyo subxaanallah aad badisaan. rabbiga ku samaystay iyo waxaad ka samaysan tahay baa soo tahay haddaan dib kula hadlo ku soo waco ilma xaraan baane aniga kiista misay wal misid dibna ku macaaninayo dibna ku bari maayo waxa tahay bayna subxaan allah ku jirwas intaas hayno balana. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. ha caroonina oo ha caayinina caladii ee baa ku dhacday ee baa carooday tan allah ka weyn. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
هذا الآذان يرمحو تريا الله وين بعنا على ذا ودين دين الإسلام كل الله يعلم ودل الله النقومي روح عاية عين منها رب العرش العظيم وحكى اليوم ذي هو دل قيس يا قرابنا كاسمله دوقا يا أركتدا يا فرينتا يا عدكا يا عدد بدر أو كلاتا عن هينا دليل بيقولنا قنيا دينت يا أوقافت سومال اللان محيكا قبطانيكا الله وين عاي معاربو أطريا محاسكي سوء حريصانيا مقفت سوء إنو قاوية كحشوريا اللي يؤومي إيه هالكا أنا فتدي سكسمين هالكا ميلو كسحر عن كدقن منك عاي لا إله إلا الله محمد رسول الله يودينيا واعدنا كورما هذا بقف الدفاعية إيه دميرك اللي تا إيه وها يستكاسو إنو يهمت حق مضن يمت قرله dadka waxa kamida oo la sheegay nin sheegtay inuu suugaan yahay oo kamida dadkii gabadhaas waxa ay biil ninkaas u soo dirto cunada ka dhigan jiray bal wada ku isticmaali jiray kolkii gabadhii tashatay oo baahay ka samatay bixiye dibindaabiyada badayaan ay meel kasta oo la fadhiyo ceebaynaya haddana suugaan yahan iyo sheeganaya inuu abwaan yahay وسعن شيء لا أبيه لوا سو عيلك تجمع النبيت لا دي هدي الله شيء بيه لوا ولا عيلك بيكوسي ساعتها كمان ده واحد الله عاية الله عيلي الله عابيني واحد كلام ما وديت كذا يوحش قيسان يسوي الله برتي والظلم وح الله قيسان يوح مدعي كجرتي نيجا واحد على هذا ما قيس يسوي نشجع يا أبوان سعيد محمود قهير وانا نيك هالكا يدي كم موضوع ما انت إلا ما انتي قبضا عيبتي هذا نيك اسو دبدا كياني قبضا اسو دبدا جوغا يسوي كل ماي رق يدمر بي سوق جيران وارمي هذا الله يدا ابورتك بقاي سك الساعات قبضا حمان نسوق عروستان كوا اذن كميدا او ربيغا وين كحشوده او كعبسدا جيرا oo dameer leh oo dhiig Soomaaliyeed ku jiro oo ka damqanay aragtidiina liidata أنا هوين تلمامي ماي دمر باجرة يجونا نكاد كل ما أنت هنا تقرب كسير إنسان وكان الله وين كحشون واي هنا تكرر يا راتان الدم بإيدين كجرت إلا قبطنا وبالشرعيا مركز لقي ما ذا قبرة دين أهم بقوم ذي هنينا كانوا محكمات قار إلا صار تي آذان يدمر لقيني تنقلوا مذنيه وحن مذنيه يواجب كيسين الله مري دابا gabadha Soomaaliyeed bulshada in dulmi lagu hayo shaki baa ku jira hase ahaatee waxaan doonayaa nina kan wax uu qarinayo iyo kan kale ee garabka siinaya inay dibadda soo dhigaan oo bulshada la wadaagaan taasaan doonayaa idinkana idinkama saarna oo shaki idinkama jiro gabadha waxa lagu hanjabayo oo dhibta lagu gaarsiinayo oo gaarin loo bidayo inaysan dulmi aysan mudnayn ahayn ee gardarro cad oo loo geysanayo ay waxaan marag eebahay iyo markhaati ka ah gabadhaas waa reer awdal laakiin haddii ay ahaan lahayd reer banaadir reer sool ama reer sanaag reer nugaaleed ama reer bari ilaahay kuma darnaadee reer burco ama reer hargeysa xaalku inuu sidaa ka duwanaan lahaa sida aan ogsoonay social media waynu ku jirnaa kolka gabar reer muqdisho ama reer garoowe ama ilaahay kuma darnaadee reer hargeysa dambi laga galo oo la dulmiyo wuu gilgilmaa social media oo gar iyo gardarraba dad baa ku taageera haddaba gabadha tan Soomaaliyeed maxaa arrinkeeda loo dhayalsaday sababta waa reer boorame iyo ragga halka jooga inaysan ahayn badana kuwa aragtidooda iyo wax kasta ay tabanayaan ka hadlo hase ahaatee dadka Soomaaliyeed ee diinta leh ee damiirta leh ee damqashada leh ee dumar waxay mudan yihiin ogi marna qaadan mayaan in gabar Soomaaliyeed meel ka soo joogto lagu dulmiyaa
anigana qabiil kastay tahay iyo qoys kastay tahay iyo degaan kastay tahay gabadha Soomaaliyeed waa ila qaran waana ila qoys qaadanna maayo in la ciilo oo calooliyo iyo ciil la bado waxay tiri Maryam Mursal dumarku nacas ha iska jiro nin weeyana yees oo waa kan oo kale rabbigii oomay ay u quuray ma aadan oo 10 ka qaadanaya iyo caab ka dhowr وما هذا برشة Soomaaliyeed waxaan u sheegay ninka aragtidiisa iyo ficilada liidata uu sameeyay iyo waxa qarsoonaydan ogeyn inta ka badan iyo waxa uu maagay wardad buu xataa u hanjabay gabaratan dad badan baa u hadli lahaa dad badan baa aamusan waxay u aamusan yihiin maxay tahay mid kasta cod buu ka duubay rag iyo dumar sir buu ka hayaa iyagoo wax xamanaya iyagoo ma garanaysaayay balwadeynaya ayuu cod ka wada haya dumar waaba maracad iyo ceeb kuwaana mudnayn bal ka warraba raglamoodka ninka codka uu ka hayo ka baqay maxay ka sheekeeyeen xaalkoodu saasay ah war ninka kan waxa kana amal iyo cibaado ka dhigtay waa ku shaqeystaa kan kale ee abwaanka sheeganaya waxa weeye ninkan waa u dhagay aqli gar iyo gardarana waa taageera sababtu ku taageerayana waxa weeye xaraan la xalaashaday hooyada Soomaaliyeed ee halka joogta ee dhasheeda la joogta ee ka tagtay dulmigii iyo ciilkii la baday ee cibaadeysanaysa sababtu wali loo daba joogaa waa inay lacag soo dirto weeyaan waa in la baado weeyaan waa in loo haysto inaan dad ka damqanaya iyo dad ka dhidheeya aysan dunida saarneen weeyaan laakiin waanu ka damqanaynaa oo ka dhidheeya Safiya Tusmo inay gabar Soomaaliyeed tahay uun baan ogahay qoys kasta ahaatana ciilka ay mudan tahay gabar kasta oo Soomaaliyeed ay mudnaan lahayd maanta inaysan arag mana mudnaayado dadka Soomaaliyeed waxa leeyahay ee damiirka iyo damqashada iyo diinta leh arrinka gabadha loo geystay ee godobta xal iyo xun waxay mudan tahay hala sii ninkaasuna sharci islaam waxa uu mudan yahay hala marsi kuwa kullu maana waxa leeyahay ninka Ilaahay ka xishoomayad garab siilaysa wad qof nool ka soo qaadaysa Ilaahay ka boqo xishooda ma hadii kale waa la midtiin aakhiriya adduunna hog ba idin sugnaa awee wans arkayna oo aayadaradiisa iyo ficiladiisa liidata iyo fikirkiisa liita inta wax laga qabanayo ninka halka idin soo taagnaanay waaniga inta uu sameeyo yeelanay inta ma aha in kale oo ka badan baa jirta insha Allah soo bandhigeen oo la iigu maqan yahay asaate barnaamij kale intaan dib ugu kulmayno warsan iyo war khayr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.